ficilada often confused oo badanaa lagu jahwareero. Study baro these examples tusaalooyinkani. waxaa ka mid aan kusoo qaadanay raise and rise exactly. labadan ficil verbiska ah often confused badanaa waa lagu jahwareeraa. waxaa yidhi the boy wiilka always had iyo jeer raises his hand waxa uu taagaa gacantiisa when I ask a question markaan su-aal weydiyo. raise markaan asaga waa gacan taagid. raise up your hand, gacantaada kor u taag. raise exactly. waxaan ri marka asaga the boy wiilka always had iyo jeer raises his hand gacantiisa ayuu kor u taagaa when I ask a question markaan su-aal weydiiyo. that shelf iskafaalahaas was too low aad ayuu u hooseeyey. so sida awood we raised it a few inches waxaanu sare u qaadnay xoogaa inches yar ayaan kor u qaadnay. that shelf iskafaalahaas was too low aad ayuu u hooseeyey inuu dhulka gaaro. so we raised waxaynu kor u qaadnay ama sare u qaadnay it a few inches inji yar ayaan kor u qaadnay aan u sare qaadnay. heavy rains roobabka culus heavy rains have raised ayaa kor ama sare u qaaday the levelki of the river ee webiga this year sanadkan levelki uu joogay ka sare u qaaday. heavy rains roobab xoog leh have raised ayaa kor u qaaday the levelk of the river ee webiga this year sanadkan. 2 rise aan soo qaadan. I always aniga had iyo jeer rise at 6 o'clock waxaan kacaa toosaa dhixdii subaxnimo. 6 o'clock in the morning. I always rise waxaan had iyo jeer toosaa ama kacaa at 6 o'clock in the morning. after the concert ruwaayadii kadib. after the concert ruwaayadii ka bacdi everybody cid kasta rose wa ay kaceen and clapped wayna sacabtumeen way istaageen oo sacabtumeen. after the concert